aad baana idinkaga mahadnaqayaa martiqaadka anoo aad ugu faraxsan runtii inaan isu nimaadno inaan iswareysano waan jeclaan lahaa waqti inta ka badan inaan isu helo laakiin nasiib darro barnaamijii baa isku soo aadaya marka barnaamij aad muhiim ah ayaan leenahay waan jeclaan lahaa inaan su'aalo iyo jawaabe iyo maanta dhan aan wada joogno runtii taasaan runtii anigu markii hore aad u danaynayay insha allah aadan ugu mahadnaqayaa sheekh maxamed sheekh cismaan iyo odayaasha kale martiqaadkan sharafta badan waana idinka salaamaya dhammaantiin aniga oo runtii aan islaan ciisa waxaan ka bartay kelmad ah isagoo qof walba meesha u leeyahay salaanta ka qaadanaya waa fikir waxa weeye all protocols observed waa garanaysa oo maynay taasoo Soomaali ka dhigay marka runtii waa wax aad u wanaagsan marka waan salaamaya dhammaantiin Socdaal yar baan u nimid oo shaqo runtii Kenya waana joogayaa ilaa maanta Sabtida oo anagu diyaaraddaas shacabka oo freedom ayaan awoodna inaan raacno marka waa inaan iyada sugno ilaa Sabtida dii la yiraahdo dabcan bulshadana qaar ka mid ah waan arkay in kalena waan rajeynayaa inaan saragno inta aanan bixin oon si gaar ah isu wareysano haddaan waddanka idinkaga warramaya been baan idiin sheegaya sababtoo ah haddii Kenya joogtaano Soomaaliya waxa ka socda iyo Puntland waxa ka socda waa xumaayay in xilli oran jiray waxaad ogtahay ma kuu sheegaa mooyaane waxaad cusub hadda anigu idinku kordhinayaa ma jirto laakiin aan ba iska iraahdo waxaad ogtihiin ma idin sheegaa aan ha ahaado hadalkaygu warkaygaan haddaad aragteen dhowr badan marnano ku soo celcelinayana wax kaloo idin sheegaan baana garanayninba marka waddankii waa nabad weeye wax dhibi ka jira Puntland ma jiraan Puntland dhibi kama jirto shida kama jirto shaqaaqa kama jirto cabsi kama jirto waa fiicannahay waa isku kalsoonnahay waxaan u baahannahay ilaahay un baa jira cid kale u baahannahay ma jirto runtii taas weeye Cabdulle baan rabaa warkiisii inaan raaco runtii taabtana waxyaabaha hadda annaga waddanka ka socda ama siyaasad ha noqoto ama horumarin ha noqoto sideedaba anoo markaan nimid waxaan ku dadaalay waxaa weeye dowladnimadu waa haykalka institutionska waxa la yiraahdo Puntland waxay jirtay 17 sano dabcan 17 sano progress iyo horumar bay sameeynaysay qof walba mar buu imaanayay waxbuu sameeyay waxbuu ku dareeyay aad u maasan yahay odayaashii hore nin walba meel ayuu keenay hawshan iyada ah anigu laakiin markaan nimid waxa aan arkayay waxay ahayd Soomaaliyana waan joogay dowladnimadu waxay ka bilaabataa good governance waa institutions wax la yiraahdo good institutions beget good governance waxa weeye institution wanaagsan ayaa dowladnimo wanaagsan dhala marka inaan ku dadaalo waddanka haykalkiisa institutionska dowladnimo wax iska bedelaan taa waxay ay keentay marka inaad marar badan naga maqashaan in la sameeyo reforms in yani isbedel la suubiyo afar reform oo xoog leh ayaa waddanka ka socday waxa ugu horeeyay waxay ahayd reformka shaqaalaha la socotaan oo uu horseed ka yahay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Cabdiraxmaan Sheekh Axmed kan la jooga maxay tahay in Puntland ay yeelato shaqaale fiican shaqaale ku yimaada merit lagu shaqaaleeyo lagu promote gareeyo merit iyo qofku waxa uu istaahilo tartan furan oo xorana shaqada lagu raadsado oo markaas dhanna waa cadaalad dhanna waxa weeye dowladnimadii ayaa wax iska bedelayaan tirakoobka shaqaalaha waxa mana qaybtii soo horeysay ayaa soo dhameystirantay iyadoo maanta qof walba marka laga reebo wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada oo ah labada wasaarad ugu waaweyn oo iyada feeska labaad ah feeskii hore uu soo dhamaaday
أنت قف كستوء بندان جوجا وشغالهنا وتيسر ليه هي والنمبر ليه هي لا يقانو شغالة ما شغالة إن ذاك كلام حرمنا إن شغالو أيهين شغاله صحها شغاله صحها نائنا هاي السنة وحول هذا دم حرمنا شغالها ترى بدن إلى حد إلا يريو وحول هذا داون سايز أنا سمينه ذاك كلام هايت سايز وحول هذا شغالو كي صحة أو تنبيه هاي السنة ولا سعوتان أنا وحدا وحي كوسية وحي أقاسمه جود waxaa lagu galaa tartan xor anu aysan waxid ma magacaabo halkan Cabdiraxmaan Weere jooga waxaan magacaabay oo kaliya waxa weeye imtixaan gelin dadka kootada anugu talagalay dadka awliyaha waa la hayb sooca ama dadka qabay cadaalad darada soo jireenka marka ayagu maadaama cadaalad darada soo jireen ay qabeen in ayaga koota gaar la siiyo taas marka annaga ayaa dadkaasi raadina annaga ayaa marka si gaar u qornayeen sababta waxa weeye meel ay kala tartamaan dadkaas hore ma jirto sababtoo ah hadduu sadaqaale haysan oo uu duran yani boqolaal sano soo jiray waxbarashada kulama tartami kara dadkii aqoonna kulama tartami kara dhaqaalaha kulama tartami karo marka waxa weeye ayaga wax u baahan yihiin special treatment si gaar in loo eego ayay u baahan yihiin waxaan ugu sharanayaa Faadimo Jibriil hadda markaan tartan xor ah la galo oo ha lagu tartamo boosaska shaqooyinka ugu badan hadda oo lagu tartamo gabdhuhu yani proportion xoog la ay noqdeen iyo cadaalad deegaan labadaba marka reformka shaqaale inaan suubino si shaqaale sax ah oo helo reformka kale aan wadna wuxuu ahaa waxa la yiraahdo justice reform cadaaladda Puntland qof kasta markaan imaanaynay waxa la qof walba wuxuu ka dacwoonayay ama ka eed sheeganaya cadaalad darro okay marka in uu soo dhamaaday marka fayskii hore ee reformka laftigiisu oo ahaa anisha hadda dadka cadaaladda ka shaqeynaya Puntland boqolkiiba 58% dadka cadaaladda ka shaqeeya shahaadooyin ma aysan haysan 58 afartan iyo labada soo hartay in badan oo kamid ah waxaan oranayaa more than 50% shahaado sharci ma haysan marka seer dadkaasi marka cadaalad u dispense gareynayaan marka inaan reform subina cadaaladda oo dadku ay cadaalad helaan dadka yani dad meesha looga baahan yahay aqoonta sectors baa kala jira dawladnimada meesha aqoonta looga baahan yahay waa cadaalad inuu cadaalad ka shaqeynaya aqoon diimeed iyo aqoon maadiyaba qofku inuu leeyahay iyadana guddiga baan saaray guddiga marka waa soo dhameeyeen recommendationskoodii waxaa noo haray waxa weeye implementation phase inaan gallo oo markaasi hawshaasi ay soo dhameystiranto tan kale waxa weeye security sector reform in isbedel ku sameeyno xagga ciidamada hadda dagaal baan galay runtii ugu furmay laga bilaabo October koodeedii ilaa hadda dagaal yani wadanka lama socotaan dadkuna ma oga dagaal baan ku jiraa runtii yani full yani dagaal xoog leh oo dib badan ayaanu kula jirnaa nimanka aad garanaysaan odayaasha taas xoogaa dib bay noo dhigtay barnaamijka aan ka wadnay reformka aan ka wadnay ciidamada in badan waxa maqashaa marun beenayaa propaganda ciidamadu lacag ma qaataan mushaar lama siiyo waxaan idin sheegayaa caagle ka hadlimaya anugu ciidanka annaga noo shaqeeya hadda kuwa dagaalka ku jira iyo kuwa kaloo shaqada haya been idin sheegamayeen waxay qaataan mushaar waxay qaataan gunno mushaarka la eg waxay qaataan raashin haddana markaas waxay qaataan dry food marka propaganda dadka la wareegay suuqa oo xaq yani annaga oo bil jir laba bilood jir baan ku bilaabay propaganda iyo dacaayad iyo shido marka runtu taaway laakiin waxaan u baahanahay annagu Puntland ciidan tira badan uma baahna bayroolka 9,000 baan ugu jirta ma u baahanahay maya waxaan u baahanahay small robust army ciidan yar oo xoog leh oo tayo u baahan reformka marka insha Allah isna
وصوب سمايا وانا كنت داري دونا انه صودا ما يستلم ان ريفورم كودن بي ودنا وحو اها waxa loo yaqaan public finance management ان maxamed xusmaan baa ka hadlayay arinta corruption-ka waa run ma oranayno corruption ma jiro corruption waa jira meel kasta oo xafiis dawladeed uu jiro corruption waa jiraya ya sababtoo corruption wuxuu yahay macnihiisu economic corruption waxa weeye the sale of public office for private gain soma inaad iibiso xafiiskaaga adiga oo raadinaya dan shakhsi ah marka meel xafiis dawladeed jiraba corruption waa jira laakiin lala dagaalamo corruption-ka in waxa yar oo dadka soo gala soo sheegay inay accountable yihiin inay transparent tahay in waxa lagu qabanayaan dadka ay u muuqato barnaamijkaas World Bank ayaa nagala shaqeynaya waxaan rajaynaynaa isagana meel fiican buu marayaa in uu si fiican noogu soo gabagaboobo arinta marka anagu aan dawladeeda xoog ka saartay and for good reason waxa weeye afrinta kaabayaasha dhaqaalaha infrastructure sababta idin sheegayo wadankan haddii aan kaabayaashiisa dhaqaaluhu iska bedelin wax horumar la gaarayaa ma jira hadda maalan annagu markaan nimid waxaan nidhi Puntland waxay u furan tahay ganacsi iyo business Puntland is open for business qof kastoo imaanaya Chinese ahaw Arab ahaw Mareykan ahaw haddaad Puntland invest garaysanayso waa soo dhaweynaysa agar baan idin sheegayaa nin la yiraahdo Said Waar Cali oo waaga aan Mareykan wax ka baran jiray Vanderbilt University aan saaxiib ku ahay wada nin aad yani business staff kiikun oo lacag badan haysta ee waxaan isku aragnay Dubai marka Puntland biga wareystay Puntland ma lagu warramay Soomaaliya marka wuxuu yiri inay imaadaan rabaan wuxuu taa diyaarad gaar ah private jet wata wuxuu yiri waa imaanaya yani imaanaysa ha afkar waxaan ku yiri waraade ninka wadu yarta dadka imow airport ku dagana mala wadanki marka dadku ku ciloobaysid waxa uu sheegay sida iyo waxaan u sheegay bad ugu dheer baan u leenahay kalluun baan u leenahay macdin baan leenahay batrool baan leenahay waxaan ku akhriyay waqti marka haddii garoonka uu siin jiray ku tago waqti waa mirarka waa picture ugu horeeyo ka qaadanayo weeye Puntland uu ka qaadanayo marka in arinta wax laga bedelo alxamdulillah meel fiican baa wax noo marayaan hadda wala socotaan Boosaaso airport Boosaaso meel aad u wanaagsan buu marayaa waxaan rajaynayaa bisha December hadduu dib u dhaco bisha January in qaybtii koowaad ee airportku ay diyaar tahay oo 2 kilomitir iyo 400 oo mitir waa airport fiican waa yani in fiican oo ay diyaaraduhu jadka ay imaan karaan kana duuli karaan diyaar weeye airport wala socotaan waxaan siiyay niman Chinese sababaan u siinay markii ay inay wax badan nagala qabtaan niman lacag ka raadinaya ma ahayn airportka iyo runtii kamaniga waxa weeye CCECC baa la yiraahdaa waa kamaniga dhisaya xadiidka u dhaxeeya Djibouti iyo Addis Ababa iyo dekadaha ka sameynaya Djibouti weeye marka $6 milyan lacag uma aha umana iman meesha laakiin waxay rabeen wadanka inay bartaan oo yimaadaan wax badan hadda way nala qabteen inay airportka kadana face-ka labaad uu noqdo 3 kilomitir iyo 400 mitir inuu noqdo airport lighting ay sameeyaan oo Soomaaliya dhibta waxa weeye habeenkii laga degi karo laakiin uu noqdo airport maalin iyo habeenba laga degi karo maadaama airport ku dheeraadayna waxa durkay terminalkii marka inay terminal cusubna ay ku daraan intaasina waa face-ka labaad insha Allah oo sanad dabadiis ay ku dhameystiri doonaan hadii la yiraahdo waxa iyana meel fiican maraya airportkii Garowe wala socotaan waxaan bixinay tenderkii hadda waxa lagu saxiixayaa Dubai contractkii bisha 28 hadii la yiraahdo ka bacdina waxa weeye in kamaniga yimaado hawshiina bilaabo Garowe airport hadii la yiraahdo sidoo kale airportooyinka kale oo waaweyn sida airportka Galkacyo isna waxa weeye waxaan ku jiraa wali dadaal sida lacag loogu heli lahaa oo runtii aanu isna maadaama airportkaasina muhiim yahay wadanka dhexdiisana bartigiisana ku yaalo in isna aanu helo dhaqaale airportkaas lagu horumariyo iyo kuwa kale oo tiro badan oo wadanka intiisa kala ah dhanka dekadaha dhawaan waa la socotaan waxaan heshiis la galay company
nin businessman oo private waxaan rabnay runtii in dad badan baa interested ku ahaa oo مثلا hadda Dubai DP World oo Emiraatku interested ku ahaa dekada Boosaaso laakiin maxaan ka ruusinaa waxaan ruusinaa in sheegaya sababta waxa weeye ma hubo DP World inay dekada la tartanta dekadooda Jabal Cali inay dhisayso marka inaanu waxaan u baahan anigu quick investment haddaan u baahana haddaan dhismo u baahanay anigu waqtigan joogaya waqti yar weeye ma garatay inaan bilaabo dekadiina bilaabato dekad fiicanna ay naloo dhiso insha Allah hadda surveyoriski way yimaadeen qalabkoodiina hadda wuxuu soo bilaabanaya imaan doona hadii la yiraahdo bisha September marka laga baxo maxaa la yiraahdaa xagaaga iyo dabaylaha markaas inay qalabkooda keensadaan dekad caalami ah oo hadda dibadda waxaan iska haysanaa dekad maahane wax yar iska macbila weeye laakiin dekad caalami oo wax walba leh in ay bilaabaan barnaamijkaas sidoo kale waxaa runtii isna naga yeelay in uu ku daro dekada Garacad oo scale-ka Boosaaso kale inuusan u waa dhici kartaa laakiin iyadana in ay uu meeshaas dekad ka sameeyo sababta ay Garacad important u tahay waxa weeye hadda waxa maqlaa Berbera corridor waxa la yiraahdo Soomaaliya maqal anaga waxaan rabnaa Garacad corridor waxa la yiraahdo sababta waxa weeye waa meesha Garacad ilaa xadka Ethiopia waa 200 iyo meeqa weeye 300 260 kilomitir weeye marka in meesha dadka laga dhiso sababta waxa weeye hadda Boosaaso iyo hadda مثلا hadda waxa weeye markaan dekadani ay bilaabato waxaan driver hadda ka sameeynay meesha la yiraahdo Turdibi oo ah daldogo waa ganasha marmaynaya mid kalena waxaan ka sameyn doonaa meelaha Dar es Salaam marka maxaa drivertiga iyo boortka la isku xiro markaasi aan access u helo ganacsigeena u helo jid iyo dekad iyo driver aan u helo 90 milyan Ethiopia ku nool inaan u helo ganacsiga iyagii uu noqdo oo helo dilayda Turdi wala socotaan hadda way bilaabatay waxaan ku wadnaa hadda dhismihii ayaan wadnaa markii dhowr jeer aan isaga daba laabtay wadanka Ethiopia runtii Cabdullina uu yani aad uga shaqeeyay Cabdullina guran in 5 gobol oo kamid ah Ethiopia in ay serve garayso dekedeenu serve garayaan hadda Boosaaso furan Boosaaso inay serve garayso oo ay siiso badeecada iyo ganacsiga 5 gobol oo kamid ah Ethiopia shiiskaas ayaa la galay diilahay markii laga soo tago dekadii airport waxa ku xiga waa jid weey wala socotaan jidka ugu muhiimsan halbowlaha ahi waa jidka u dhaxeeya Boosaaso iyo Gaalkacyo artrigeenu dhaqaale kaas weey Garowe iyo Boosaaso jidkaas waa fiican yahay laakiin waxa aad u xun waa jidka inta u dhaxaysa Gaalkacyo iyo Garowe wala socotaan midoo ka aragteen jidkaasna waa daa furnay waxa noo invest gareynaya EU-da inception report-kii hadda bay soo dhameystireen bisha socota ayay imaanayaan Garowe hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa sanadka dalayaaqadiisa isna dhismihiisu inuu bilowdo jidkaasi oo la dayactiro u dhameystirmo hadii la yiraahdo waxaan kale oo dhagax dhignay wadada Ceel Daahir iyo Ceer Gaabo hada dadkan ugu qoslaan yiraahdaan ma waxaad isi kartaan Ceel Daahir iyo Ceer Gaabo la yar aanu inta joogo inay sadismin laakiin you have to dream moogtahay waa inaad rabaa inaad marka qaar kood inaad riyoto waa fiican tahay sababtu waxa weeye wadadaasi iyo dhulkaasi Puntland waxay u leeyihiin special strategic importance yani istaraatiijiyad muhiim ah ee u tahay jidkaas uu dhismo anagu waa bilaabanaa marka waxaan ogahay haddaan bilowno 10 kilomitir oo horeysa حتى هدي شيء عن كدقنه 90 كيلومتر u dhaxeeya baran iyo ilaa Ceel Daahir dabcan waxa weeye marka aad wax qabsato anagaana isku qoray anagaana isku tashanayna inta inaan suubino ta hadaan helo dabcan waa helana investment dad baa imaanaya
يعني نيو ديلka wax ka soo baxan baa dhici karta waxa weeye waxaan aaminsanahay haddaad niyadaadu fiican tahay waxna bilaabato ilaahayna waa nagu taageeraya waana gaarsiinayna ma hubo aniga inaan waqtigayga interimkayga inaan dhamaystiri karo laakiin qofka iga dambeeyaana wuxuu ku sii dari doonaa insha Allah 10 20 years hadidkaas noo dhismana alxamdulillah ilaahay yiraahdo markii hadda aan tagayay gobolada bari aan wareegayay runtii ilaa dhulka marto dhulkan hadda u dhaxeeya Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo Mudug iyo dib kama jiro wadooyinka waxa dhibtu ka jirta waxa weeye bari ina tagtaan baa fiicnaan lahayd dhulkaas sidoo kale hadda waxaan u dirnay assessment laba wado oo bariga fog ah oo la yiraahdo la fogoro iyo dhabaaqo waxa weeye wadooyinkan ka baxa Baargaan iyo ilaa Caluula isku xira weeye marka in hay'adayada anaga meesha iyo wixii aan ka heli karno oo kale barnaamijyo badan oo food for work programs iyo inaanu jidka ku dhisano Abdullah tagay anigu ma tagin Caluula anigu Baargaan baan ka soo leexday waxa weeye waxaan malanayaa la fogoray waa 60 kilomitir miya wadada la fogoray laakiin waxa way xasoo laba baabuur isma dhaafi karto marka yaani waa in telefoon lagu wada hadlaa la yiraahdo baabuurkaas isu soo bixin yaani maartay inta kale uu jidka ku soo jiro marka xagee joognaa yaani 21st century in yaani saa loo nool yahay waa wax maartay aad looga xumaado weeye gaar ahaan dhulkeendii marka in wadooyinkaasna runtii wax badan ma ka qaban karnaa anoo cidna aan u yeeranin ayaan wax badan ka qaban karnaa waxa islaami ahayn wax badan baa anagu ku tashan karnaa hay'adayada iyo dawladda wax badan bay qaban kartaa marka inaan anagu isku tashano wadooyinkaasna runtii wax badan laga qabto ayaa rajeynaya jidad badan oo kala noo socda marka la eego yaani magaalooyinka gudahooda meelaha ay barnaamijyadu ka socdaan runtii waa jeclaan lahayn inaad aragtaan ama garow tagtaan Gaalkacyo tagtaan isbedelka wadada hadda ka socda hadii ilaahay yiraahdo marka waan rajaynaynaa in ayana isbedel tiro badan uu ka yimaado dhanka kaabayaasha dhaqaalaha guul baan rajaynaynaa sababtu waxa weeye hadda dad tiraahdo dadka hal invest garaysto waxyaabaha hadda anaga mesela khayraadkeena ugu tirada badan waxa weeye kalluun soo qaad dana kalluunka hal invest garaysto waxaad u baahan tahay qofku markuu soo dabto kalluunkiisii wuxuu u baahan yahay jid uu soo qaado airport uu ka duulo iyo dekadu bilaacis ka dhofsado marka hadaad haysto network oo aad jid airport dekad horumar ma gaari kartid idana ku imaan mayso wadanka ma maskaraysanayso sababtoo waxa weeye ninka investmentka suubinaya ku imaanayahay jidkina soo ku dhismayade marka runtii taasaa keenaysa in aanu aad ugu dadaalo in kaabayaasha dhaqaalaha wax iska bedelaan dhanka security-ga wadanku wax dhibaato ka jiraan ma jiraan waxa kasta la sheego hadda mesela waxa weeye magaalo kasta waxaan u sameynay magaalooyinka waaweyn gaar ahaan ciidamo birmad ah oo runtii xoog leh cid la socota Boosaaso iyo ciidan waliba gaar isagu oo mobile force haleeda rapid reaction force ciidan mobile oo 300 oo guuri kara hal mar oo wax badan ka bedeli kara nabadgelyada iyo security-ga dalka in yani lugaha iyo gacmaha sharciga oo ah booliski stationadii wax badan laga bedelo la hubeeyo ciidankeena gaadiid loo gado soo daadna inay markaas ay awoodaan inay wax ka qaban karaan ciidan yani xoog leh oo wax badan ka bedeli kara nabadgelyada dalka in uu jiro gaar ahaan booliska oo ah wixii ah internal security-geena midaan ah xuduudaha annagu wax shaki oo qabnaa ma jirto saa idin sheegay Puntland waa isku kalsoon tahay ciidan ku filan way haysataa oo difaaca xadkeeda runtii way haysataa laakiin ana la socotaa wadanku inuu dagaal ku jiro inaad ogaataan baa rabaa waxaan ogahay dadku yani aad uga warqabaan dagaalka runtii aan ku jiro ilaa 1300 ciidan ah ayaa buurta engagement ku ah ka dagaalamay dhowr arrimood oo kala rabaa inaad taabto waqtiga ugu yar
أرنت كويت وحوي أرنت الديمقراطيزيشن أو كهذا الشيء اللي يرواه ده وصح وين ده رنتي وقت أنا قلت لك قال لي هيدنا بلونه وكذا ده صوت هاي within the first year إنه بلونه هاي شيء هذا مرة كان لعبته بروسس بان لو سعودي ضد بقى أرنت نجات تاجرة دقالهان إن شرعي أو إلكترولوجي ولا سعتان نقولها وزيرة وان باسكريني البرلمان كنا واقع صحيي وحكوا حاجة وحوية إن جدي دورشة عن سوبرنو تبع جدي تمبرجها دورشة عن سوبرنو within a month أنت اللي جارين شركة قال كعيو أو جراند كونفرنس كان كل سمين دونه قال كعين أنت اللي جارين إن جدي جالسي أي دياريهن أي هرجين يدير هيدا سواء وحن بلغ عبدي أو الله سبحانه وحنري دولة ديادا success كذا يفيلر كذا أما سجوش اللي قدرة هذا وحكوا حران دونتا سيدا أنو دورشة أقسم إنه بيش جانوري سجال جانوري 2019 لو أكون يسجال يطبعا حدي أي دورشة كدعوة إذا بنتلان وحاول عبدولي دول زوا في الجرودوية مركوا والتست هو يرنتي أنا سكحر ري مركوا أينو في الجلا رنتي كويس متشرف وعلى صعوتان شير وحنا نقول دونتا هذا الشير بمركوا أنا كنت لقلي لكن إلى أفر شير ومهم يا دوان كده دون بنتلان كانوا رأيوا حوي شركة من ضمن بنتلان محيطها شركة ده إن فيها شيء محاربنا يوم ولا صبحوا بنتلان واحد تضبيه 8 سنة وقت ياسنا وحبضنا وادعين أو هرمنا وان سمينا وحبضنا وانا يخدمين مركا dadka Puntland inta isu yimaadaan su'aal la isweydiiyo su'aal la qabaa in la hadlo la isu yimaado waxa la iska weydiiyo meesha aan joogno meesha aan ka nimid meesha aan soconno iyo sida ku gaari karno inta su'aal la iska weydiiyo aan u baahanahay marka shirku wax kala maaha shir siyaasadeed maaha shir waxa weeye dib u soo nooleynta هذا laga hadlayay midnimada Puntland intaas way muhiimadeed marka shirka oo horeeya waxa weeye shir civil society-ga iyo dawladda shirkaas wuxuu ka dhici doona gaalkacyo insha Allah shirka ku xiga waxa weeye shirka ismada oo ka dhici doona qardho diila yiraahdo waxa ku xigi doona shir diasporada oo ka dhici doona Garowe ka bacdina shir dhamaan inta la isugu yimaado Garowe hadana kala ka dhici doona diila yiraahdo la isugu imaan doona afarta shir waxa rabnaa marka dadka Puntland in ay ku caafimaadaan yani kuwii qaba tabasho wanaagnahay dad badan baa hadda khaatuma iyo hay badan baa jira marka dhul baa maqan oo Puntland ay leedahay marka dood baa la rabaa in la wada hadlo qofka wax qabana la shaafiyo ma garatay lama wada hadlo oo la isticmaalo loo baahan yahay marka shirkaasina jadiis wax kala maaha waxa way adkeynta midnimada Puntland ayaan uga dan leenahay arrimaha hadda ka hadlayseen xiriirka dawladda federaalka iyo Puntland waxaan moodaa runtii anagu waxaan ku dadaalay in xiriir wanaagsan u dhexmaro dawladda federaalka iyo dawladda Puntland laakiin mar walbaaba waxay shiddo nooga imaanaysay dhanka dawladda federaalka anagu Soomaalnimo ma aanan diidanin Soomaaliya ka shaqeynaa wataan idin lahaa waxa weeye Soomaaliya waxay ka dhalatay Puntland bay ka dhalatay la soconaa dadka xornimada u dagaalamayay Soomaaliya dadku ugu muhiimsan Puntland bay ka imaanayeen dad magacyo ka hadlaysana waa idin tirin kara hadaan rabtaan marka anagu hooyadii iyo aabii Soomaaliya waa nahay Soomaalnimada anaga naga bilaabatay anaga nagu dhamaata runtaas weey laakiin waxaan rabaa in la isla fahmaa rabaa Soomaalinimada cid kaliya cid gaar ah ma bush garan karto ma riixi karto waan lagu wadaa it takes two to tango Soomaa waxay u baahan tahay dhanka kale in ay laftoodu ay nala fahmaan arrinta iyada ah laakiin anagu ma oranayno hadii dhibitimid Soomaalida ka baxna ma oranayno Soomaalida waa wadaynaa waan riixaynaa waan ku dadaalaynaa anagu aan ka tagaynin danta gaarka ah iyo maslaxada gaarka ah ee Puntland iyadu ay leedahay u gaarka dirahayda arrinta galmudug iyo asaaskeeda طبعا سيد عبد الولي دستور بقى لسميس دستور كلا سميي وحي كقرنا دستور كو وحويه هشيس بلشو صوما marka heshiiska bulsho aan dhiganay waa in qolo walbaaba ay heshiiskaasi aysan burinin ee ay ilaalisaa marka ma ogolaan cid gaarihi ee wadana gaar leh inay si gaar ah u samaysato
وكبح حسن دستورك أنت سوين لبت تشرتاي maamul miyaa u diidanha walaalaha dariska no way fiican tahay in dadka dariskaaga uu maamuleeyahay hadii ay anarka ka jirto dariskaaga adiga wax ku yeelanaysaa dhibaato ku keenaysa marka in maamul jiro inaan tuugada isu celino in yaani mataqaana aan maamul jiro oo nabadgelyo jirto oo dhaqaale iyo ganacsi yaani la isdhaafsado waa waxa aan u baahanahay weeye لكن وإن التمامل كأبور مياهي وصندب وكينين مامول هذا الشيء. مركب بولا أنا طريقة ما سنة شرته حدود إذا ما لقينا يا شكي وحلا قبل كرامة من يجري من يجري يسوع كنت صوت حوي هذا يدين شيء دستور كذا الشيء قبل ككلية كحسن the only federal entity أو شرته الدستور كقاعد بولا أمي مركب بلدان oo federal ka horeysay bلدان oo dastuurka ku taala xuduudeeda shakil gelinaya danka soo waalan way ma in mir qaba ma xasamay dhanka kala hal iyo bar waxay u gooysay leeyihiin anagu kuma haysan waxa doonta u gooysay arrimaha federalismka maxaa federalism maxaa bلدان u riixda federalism مرة أيام مقاشين ما كانت ترى هذا أنا إن بدنا كم يديه وأشعلها فدراليزم لكن صار أشعلها منقة إن بدنا وين عبتها يسوون نعبهم بيقنا لكن فدراليزم هو وح سهلا وحويه إن قفك هو إن والله جهل الفدراليزم هو حويه إن قفك الشخص جاهي وأمان هرو حلا sovereignty of the individual قفك شخص جاهي دولة لماذا وحنا والله ترى وحنا والله قديمة marka adduunka wala socotaano waxa la yiraahdaa dawladnimadu waa in la fidiyaa waa in separation of powers waxa la yiraahdo in yaani in golasha cidajin golo xukuumad executive iyo golo maxaa la yiraahdaa sharci maxaa la yiraahdaa justice inuu jiro haddana dhanka kale in ay jirto powerka si vertical ah loo sheer gareeyo يعني فدرالكي ستيتكي لوكالكي دول باوركي سليه marka waa nidaam wanaagsan weeye oo ilaalinaya qofka xuquuqdiisa ilaalinaya oo yareynaya in awoodu ay hal shakhsi hal qof hal magaalo hal gobol gacanta u gasho intaas waxaan ka rabnaa intaa weey magarat marka dad badan ka soo horjeeda federalismka waxay yiraahdaan waxa Soomaaliya ka socda waa kalaam federalism يعني فدراليزم خبيرة أنا إذا ما أها صوت حويه دول كستو الصومالية قبيل كستو ولا جهة لكن حتى هذا الساس تهي واحد ما كنت شرا مشرا إثيوبيا هذا نقص دور وحكى شرا إثنيك فدراليزم صومالي عنفر بشنقول محل هذا تجري أمعارة يا دي يا بركة إن سوالف لفتيجود أكل نمط جلانو قبل بعض معمول كذا جارك أسوسته وحده وكشرة مشري عيبنا ما لكن ذات أداء إكتو قبل هذا الصومالي ولا ولا دجال قبيل قبل جار وشيء كان هنتين وشرو لا يمية إن وقدم بينتي وايدين ورناي إذا محنو قبل كرتان سؤال ساسي وحنو قبل كرتان واسهلين كو horta dadna waxna tireen shideen naga daysaa ya khayrkiina daan helaynin shartiina horta aan ka nabad galno waa mid koowaad mid labaad wadamada aad ku nooshihiin oo joogtaan ama halka jooga ama Yurub jooga horta in aad shuruucdooda iyo nidaamkooda aad dhowrtaan talabaad meesha aad joogtaan wax ka noqotid sababtoo waxa weeye qofkii isagu meesha uu joogo wax ka noqda ayaa anaga waxna tari kara horta inaad dad micna leh meesha aad joogtaan ina ka tihiin ayaa anaga muhiim noo ah ka bacdina wadankii waa sugaya wixina dhaqaalaha haystay niman badan oo lacag leh oo $100 milyan oo dollar haysta la ii sheegay wadanka jooga reer Puntland war 10% ya boqolkiiba 10 meesha waa ka timaadeen walaalihiin baa jooga eedooyinkiin baa jooga ehelkiin baa jooga boqolkiiba 10 kaliya xataa ku soo celiya dalka
نوكي يا هالمشروع لما مشروع وين سينا ايربورتوين كإمادة لسه وحنا بي او تي باشيله بيل اوبريت ان ترانسفير إمادة لعقت النقشة أنا أنا نافعيسا إذن إنفستمنت بإيدين تاع أنا أولي كرتان كان مشاريع كلون مشاريع حوله مشاريع يا سيادة أنا أجهده سؤال على هذا وريسكي يديب أكترته تهاير الريسك تهاير الريورد ريسك مبادئ وبداية هاي ريورد مبادئ رنتي مركا أنا اعتمادان ودنكي not only dadka lacagta haysta dadkeena wax bartay laftigooda in wadanku soo laabataan oo aad soo sheegayay odaygu waxa alhaash u lahaa dad waalan oo qaatay cunayeen maartay waashi dadka aan hayna dadkaas weeyii marka intii namiirka qabto oo fayo inkastoo dadka halkan jaadka lagu cunaano wahay inaad noo timaadaan oo hatta waxa weeye nidaamka dawliga barateen exposure-ka ah hesheen oo dimuqraasiyadda oo kale waa wax weyn ogtahay qofku markuu nidaam wadan nidaam la ku nool yahay uu yimaado wuxuu soo kordhinaya runtii wax badanna Puntland iyo Soomaaliya waxa ka bedelay waxa weeye dadka diasporada waxaan ugu bedelay waxa weeye fikirka markii ay dibad tageen ay soo qaateen ama aqoon ha haato ama dhaqaalaha noqoto ama exposure-ka ay heleen oo nidaamyo wanaagsan ay arkeen ha ahaato dilahiran ugu dambeyntii waxaan ku dardaarmaynaa dardaarankii uu Maxamed Xuseen ku bilaabay oo ah marka idinku aan mid tihiin ya unity ya wax ma tari kartaa ya qabiil gaar ah ma rabno cid gaar ah ma rabno Puntland oo mid ah oo meel u wada jeeda ayaa dhamaanteen anfacaysa aad iyo aad u mahadsantahay شكرا مدحوينه هذه عاد بو مهدسيهي رنتي شير شرف له وانا